xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hiirshabeellena waxa ay ku baaqeen in uu is-casilo madaxweynaha maamulkaasi sida warbixin warkaasi ku saabsan noogu soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Wadani maalmo ama saacado ayaa naga xiga sida la sheegay isku shaadheynta golaha wasiirada dawlad goboleedka Hiirshabeelle uu ku sameynayo madaxweynaha Hiirshabeelle Maxamed Cabdiwaare waxaana arrinkaasina ka soo horjeestay mudanaal ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Hiirshabeelle waxayna sheegeen xilligan in madaxweynaha Hiirshabeelle suurtagal aysan u noqon doonin inuu isku shaandheyn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada iminka jira waxaana sidoo kale xildhibaanadan ay tilmaameen in wasiirada qaarkood aysan qaadan mishaaroodkoodii ay xuquuq ahaan ay u lahaayeen hadda waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Hiirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda Hiirshabeelle marka sidaa daraadeed waxaan leenahay madaxweyne Maxamed Cabdiwaare hoggaankaas aad iyo aad ayuu ugu fishilmay runtii mid la fiilay shacabka ay sugayeen ma aha shacabkii Hiirshabeellena taas uu ku hungoobay dibdhacaasna sababaysa waxa iska leh hoggaanka sare waana ku fishilmay si daacadnimada uu ku hogaami waayo marka waxaan leenahay hadii aan xildhibaanadii dawlad goboleedka Hiirshabeelle in Maxamed Cabdiwaare maadaama uu ku fishilmay hoggaankaas inuu xukunka si degdeg ah oo isaga casilo wasaaradda aan lahayn meel ay ka shaqeeyaan aan lahayn ayay noqdeen maanta la yiraahdo wasiiradii la yiraahdo iska baxana mid ay yeelayaan waa ka soo horjeedaan baarlamaanka dawlad goboleedka Hiirshabeelle xaq ma aha in shal la keenay maantana muddo 9 bilood ah ayagoo wax bishaar ah wax salary aanan qaadanin in iska baxa la yiraahdo qof kasta oo muwaadin wuxuu xaq u leeyahay saxaafadda xorta ah wax alla wuxuu tabanayo oo ku arka maamulkaas wanaaga inuu sheego wixii dhaliilaha oo xumaan oo jirana oo ka sheego hasaatee weydiida anagana hore ayaan u sheegnay taasna waxa sabab u ah gudoomiyaasha degmooyinkaas jooga qaasatan afka aan ku dhufto waa degmada Buuliburta ninka gudoomiyaha ku ah waa tahdiida shacabka ay noo soo dacwooday marqaatigeedana waa cadiyahay anagoo xildhibaanadii ah oo matalayna ay noo soo sheegeen marka taasna aad iyo aad aan ugu xunnahay marka hore waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo saxaafadiina oo aan ognahay in dhibaato badan ku qabto dawlad goboleedka Hiirshabeelle waa idinkaga tacsiyeynaa maadaama aan codkii shacabkii cidii ku hadlaysay annaga aanu nahay waxaan rabaa inaan dib u xusuusiyo madaxweyne Waare in aan lagu dooranin dhaqaalo taariikhda Hiirshabeellena dib uu maaragtay uu ogaado hamiga ah maanta inuu iska horkeeno golihii baarlamaankii wasiir shalay inta la magacaabay maanta aan $1 qaadanin xildhibaan oo adan kugu bedelaa inuu yiraahdo inuu taariikhda dib u xasuusto wasiir xildhibaan oo is-casilay inay hore idinku soo martay dawlad goboleedka Hiirshabeelle kuwa maanta aad magacaabayso leedahay kuraastan ku buuxina birito ayagoo wasiir ah oo xildhibaan is-casili doono codka kalsoonidina way kala noqon doonaan sidaas darteed marka madaxweyne Waare waxaan rabaa inaadan ku kahdoomin baarlamaanka waxaad ogtahay si sharaf leh ayuu ku doortay aqlabiyad leh ballanta aad qaadina waxay ahayd haddii 6 bilood aad waajibaadka aad leedahay lagu doortay aad gudan wayso inaad baarlamaankii sharafta ku doortay ku soo celi doonto muddo sanad ayaad maraysaa cutubka konton iyo koobaad farqadii saddexaad waxay leedahay madaxweynaha wuxuu shir gudoomiyaha golaha xukuumadda waxaan ognahay muddadii 8 bilood ama 10 bilood hal maalin in goliyaha wasiirada aadan shir gudoominin kuwa maanta waa bedel aad leedahay inaadan kala garanaynin maanta wasiirada dikawrima aad magacawday in ay shaqadii lahaayeen ay ka qabsan waayeen focal pointiga adiga aad u dirsatay meelihii ay shaqada ku lahaayeen ayaan ognahay sidoo kale mudane madaxweyne adigoo sharaf leh sharaftii shari lagu dooray ballantii aad qaaday oo ahayd haddii aan 6 bilood shaqeyn waayo waa idinku soo celinaa sharaftii ikraamadii dhisiiseen haddii ay xildhibaanada qayliyaan ana gardarana beesha caalamka ee marqaati ka noqo ballantii aad qaaday maanta ay taagan tahay ku soo celiha ka bixin وفو بالأحد إن الأحد كان مسؤولا شعبك الصومالي أبي قاضي صحافة حرطة أياد هرتاجنت قري كوها يسمى جيرن شرفتي إبلغات كده أمد الصومالي قارعنا Hiirshabeelle أدو قاضي ما أنت أي تاجن تهاي وحتى الشرف كل هذا هاي أديكو أمانا مدحوينا شرف له إن البرلمان كان أنت كسو نقطة هذا أبي ما أهباور كان وودي وعسل هذا إن تكسو إليسو أياد شرف كو الله كي إن الميراث كل رفته حلبان شلي وزير كديجي ما يأتي inaad maanta tiraado wasiiran ka dhiga oo aad cimri dheeri ka raadiso wax sharaf iyo karaamo ay ku keenaysan balihin
waxaan sheegayaa inta la sheegay waa run nin la qoray oo la yiri wasiiraa tahay oo 9 bilood wasiirahay oona kumin la siin oo la yiri maanta waa lagu bedelayaa karaysay sii dhalinaysaa kala jajabaysay dhalinaysaa burburaysay dhalinaysaa xildhibaanka la leeyahay ana uu daafacaya oo waxba siinaya asiga ruuxiisu waa aaminsan yahay in xaq darro lagu dooranayo oo xaq darro loogu dhiibo dayd la isaga dhigayo bood lagu gambado la isaga dhigayo sida horeba loo sheegay madaxweyne waa mahadsan tahay waa ku aragnay ballamaan lahayn ballankii inaan ka baxdaan rajaynaynaa sida xildhibaanaduba hortay u yiraheen wuxuu ahay ballankaas 6 bilood haddaan wax qaban waayo oo waxaan dhaama keeni waayo waa idigu soo celinayaa ammaanadii iska dhaafe jidkii aan mari jirnaa go'ay jidkii aan mari jirno nabadgelyo waa taas horta nabadgelyo waa tagtay inaad qabiiladii haddana isku soofayso isku dirto midba wasiiraad hebelaad tahay iyo guddoomiyaad tahay iyo aad tiraahid waa laga fiican yahay madaxweyne ammaanadii aan kuu dhiibanay inaan nagu soo celisaan kaaga codsanaynaa ammaanadaas waa ammaano culus shalayaa ballan qaaday saxaafadda horteeda ka ballan qaaday shacabka hortiisa ka ballan qaaday xildhibaanada horteeda ka ballan qaaday ammaanadii aan kaaga fadhinaa inaan noo soo celisid xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa iminka u hanqaltaagaya in ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada ee ku imaan doona isku shaandheynta madaxweynaha Hirshabelle uu ku sameeyo golahiisa wasiirada iyadoona madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare iminka la sheegay in golaha wasiirada uu la damacsan yahay inuu ka soo dhexulo golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalsan magaalada Jowhar